inta la xaqiijiyay ilaa 6 ruux ayaa ku geeriyootay 18 kalena dhaawacyo kala gedisan ayaa ka soo gaaray kadib qaraxyo is xigay oo maanta ka dhacay degmada Afgooye gaar ahaan suuqa ariga lagu iibiyo qaraxyadan ayaa waxay ka dhaceen saylada ariga gaar ahaan laba jiho oo laga soo galo suuqa ariga sida ay noo xaqiijiyeen goobjool ku sugnaa goobta qaraxyadan ay ka dhaceen agaasimaha guud isbitaalka degmada Afgooye oo la hadlay TV-ga Universal ayaa tilmaamay in 18 ruux ay markaasi ku dhaawacmeen qaraxyadii maanta qaarkood oo intii darnayd ahayna loo qaaday magaalada Muqdisho sida uu sheegay halka inta kalena lagu dabiibay isbitaalka degmada waxa isbitaalka degmada Afgooye la soo gaarsiiyay dhaawacyo qaba ka soo gaaray dhaawacaas qarax miino tirada guud ee la keenay dhaawacaasi waxay ahaayeen 18 10 ka mid ah dhaawacoodu aad u halis u ahaa oo dhaawac daran ay ahaayeen 8 ka mid ahna dhaawacyo normal iyo kuwa aad u fudud ay isugu jireen marka isbitaalka intii dhaawac culus ahayd wuxuu u sameeyay gargaar degdeg ah waxaan loo refer gareeyay magaalada Muqdisho isbitaaladeeda gaar ahaan isbitaal Madiina taas waxay ku timid isbitaalka runtii waa leeyahay saalo oo qaliinka suitable ku ah in lagu sameeyo laakiin ma joogo dhakhtar oo general ah iyo howlahaas oo guud ahaan qaliinadaas generalka ah budgetkooda ma jiro taas la ajligeed waxay nagu qasabtay inaan mar walba dhaawacyada haliska ah aan u sameeyno gargaar degdeg ah oo u dirno isbitaalada fulin kara howlahaas wabillahi tawfiiq waxayna u badnaayeen dhaawac halis ah dhinaca kale wararka ka imaanaya Marka ayaa tilmaamaya in gudoomiyihii magaalada Marka qarax ismiidaamin lagu dilay halka 11 kalena ay ku geeriyoodeen sida ay sheegayaan ila wareedyo ku sugan magaalada Marka Cabdi Fataax Tawakkal telefishinka Universal gobolka Shabeellaha Hoose